السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawaraysaan ku soo dhawaada barnaamijkeena subaxnimo saaka qodobada barnaamijka saaka ayaanu idinku hayno waxa kamid ah duqeymo culus oo xalay mar kale la isweydaarsaday dufcadii 82 ee al-wa'd as-sadiq oo xalay mar kale wacdaro ka dhigtay Israa'iil oo iyana sheegtay inay bartilmaameedyo muhiim ah ka burburisay Lebanon iyo Iran intaba dagaalkii oo wali sidiisii ku socda haddaba wararkii ugu dambeeyay waan idin hayaa Hezbollah oo sheegtay inay markaas xun u garaacday oo ay digaadigaha ka dhigtay xaruntii wasaaradda dagaalka Israa'iil ama wasaaradda gaashaandhigga iyadoo la sheegay halka in burbur weyn uu ka kacay dab xoog leh uu ka kacay haddaba maxay ka yiraahdeen Israa'iiliyiinta weeraradaasi Hezbollah ay wasaaradii gaashaandhigga ku garaacayso haddaba faahfaahin ku saabsan wararkaas waan idin hayaa sheekooyinkii Trump iyo faankiisii iyo hadaladii ugu dambeeyay uu yirina waan idin soo wadaa Iran oo la sheegay inay ku jirto heegankii ugu sareeyay kadib markii la sheegay ciidamada dalaayadaha ku booda ee Mareykanka in la keenay jasiiradda ku taala badweynta Hindiya ee la yiraahdo Diego Garcia kuwaasoo la qorsheynayo sida la filayo inay weerar ku qaadaan mid ka mid ah jasiiradaha Iran ay leedahay haddaba xaaladahaas ayaa soo kordhay wararkaas oo faahfaahsan iyo inta aan ku jirno wixii warar soo dhacana waan idin la socodsiin doonaa ugu horreyn waxaynu ku bilaabaynaa warbixinadii ugu horreeyay ee ay saakay soo saareen dhinacyada Iran iyo awlaadeeda iyo Israa'iil iyo Mareykan intaba haddaba marka ugu horreysa waxaynu ku bilaabaynaa ciidanka ilaalada kacaanka Iran ayaa saakay waxay sheegeen xalay inay rideen mawjadii 82 ee weerarkoodii ay ugu magac dareen al-wa'd as-sadiq 4 ciidanka ilaalada kacaanka Iran waxay leeyihiin mawjada weerarka 82 ee howlgalkaasi ayaa waxaynu ku burburinay warshado iyo goobaha cadawga sida Mareykanka uu leeyahay iyo guud ahaan mandiqada meelaha ay ka degan yihiin waaye afar saldhig oo Mareykanka ay leeyihiin iyo cadawga yiraahdeen ayaa xalay mawjadii 82 ay ku feestays si fiican halka loo garaacay waaye Israa'iil iyaduna waxay ku jawaabtay sida la leeyahay weeraro dhinaca cirka oo ay ku qaaday Lebanon iyo Iran meelaha ay duqeeyeen waxay ku sheegeen inay tahay goobaha Asafhan la yiraahdo oo ah deegaanka uu yaalo nuclearka Iran meel ku dhow inay duqeeyeen warkaas isagana soo kordhay iyadoo Iiraaniyiintu ay hadda war soo dhacay ay sheegayaan in caruur ay ku dhimatay weerarkii ugu dambeeyay Israa'iil ay ku qaaday Iran adduunka u sheegaynaa waa caruur iyo meelaha xaafadaha dadku degan yihiin haddaan qararamsanayna annagana waa markay fariinta soo dirto waa la yaqaanaa caruurana laga dilay dheheen ogaal caruur yar oo masaakiina ayaa gurigooda la duqeeyay marka wararkaas ayaa dhacay dhanka kale wararka kale ee cusub ee muhiimka ah saakay waxa kamid ah xaruntii wasaaradda dagaalka macnaha wasaaradii gaashaandhigga ayaa waxa loo bixiyay wasaaradda dagaalka Israa'iil tii Mareykankana wasaaradda dagaalka laga dhigay markuu Trump yimid macnaha dagaal anaga ku jirnaa waayo gaashaandhigii waa laga gudbay waayo haddaba marka xaruntii wasaaradda gaashaandhigga ama wasaaradda dagaalka Israa'iil ayaa xalay sidee tahay loo duqeeyay waxyaabaha la yaab kale waxa kamid ah Iran ma aha markan waxa duqeynaya ogow waa Hezbollah ayaa waxay soo ridaysaa gantaalo aan hore loo arag ay rideen nimankii xalay meed barnaamijkii ugu dambeeyay aan ku sheegaynay ay ahayd 8 taangiyaan gubna nimankii dhahay waaye nimanka waxay la soo baxeen waa la yaaban yahay haddaba aan idin soo wararkii ugu dambeeyay haddaba warbaahinta saaka waxay qoraysaa Hezbollah waxay sheegeen inay bartilmaameedsadeen xarunta wasaaradda dagaalka Israa'iil ee ku taala magaalada Tel Aviv haddaba warbixintu way sii socotay waxa leeyahay khamiista saakay aroortii
ayaa la sheegay inay bartilmaameedsadeen xarunta wasaaradda dagaalka Israa'iil. Xisbullaahi ayaa bartilmaameedsatay. haddaba waxaa la sheegay xaruntaasi inay ku taalo deegaanka la yiraahdo Al-Kiryah oo ka tirsan Tel Aviv. haddaba waxaa la sheegay in markaa halkaas sidoo kale gantaalka uu ku dhacay qaybta sirdoonka militariga dhanka waqooyiga magaalada oo iyaduna sawaariiqdaasi ay markaa ku dhaceen. haddaba waxaa la sheegay in markaa weeraradaas ay ahaayeen kuwii ugu cuslaa ee muddooyinkan ay sameeyaan Xisbullah. xalay Xisbullah ayaa siday taa u faagatay ilaa saakii aroortii Khamiista ayaa waxaa la sheegayaa xaruntii wasaaradda gaashaandhigga dab xoog leh inuu ka kacay oo halkaa si fiican nimankii halkaa ay u garaaceen. waliba qaybta waxay garaaceen lagu leeyahay sirdoonka militariga qayb ka mid ah kulli wasaaradda oo meel kale waaye, laakiin iyaduna way garaaceen. marka bartilmaameedyadaasaa la garaacay. Israa'iil ma ka hadashay? may. Maraykan miyuu ka hadlay? may. laakiin waxaa la arkayaa sawirro la wado maaragtay baraha bulshada wasaaraddii oo gubanaysa, baabuur horteedii ku hor baaba'day, waxyaabahaas oo dhan ayaa laga hadlayaa. marka intaas ayaa la isweydaarsaday. muqaawamada Ciraaq, awlaadii Iiraan ee Ciraaq ayaa iyaguna war soo saaray saakay. haddaba markaan idin tuso warka ay soo saareen saakay, waxaa la sheegayaa muqaawamada islaamiga ee dalka Ciraaq waxay sheegeen inay iyaguna qaadeen weeraro 23 ah iyagoo isticmaalay drones, waxayna ku weerareen saldhigyada cadawga ayay yiraahdeen. haddaba waxaa la sheegay 10 ka mid ah diyaaradaha droneska inay ku weerareen saldhigyada cadawga ee Ciraaq iyo gobolka 24 saac ee la soo dhaafay. nimanka Ciraaqiyiinta ah waxaan moodayay aniga niman iska sahlan oo wax iska tuutuuyeeyo wax, laakiin nimanku caadiba ma ah. warbixin hadda aan akhrinayo oo idin soo wado waaba la yaabay. nimanka khaliijka aadka u garaaca waaba nimankan diyaaradaha droneska ay ridayaan. nimanka khaliijka ka qaylisiiyay saldhigyada Maraykanka dariishadaha dadka ugu gelina waa kuwan Ciraaqiyiinta, maadaama Ciraaq ay ka soo dhowdahay khaliijka uga soo dhowdahay Iiraan. jugtay ka saareen. Ameerikaankiina dhagaha laga garaacay isagana saldhigyadii uu ku lahaa Ciraaq, ilaa wakiiladii NATO iyo wixii ay cararaan, askartii Poland iyo saraakiishii Jarmalka iyo kulli way carareen. waxa adeeganaa nimankan ilaa marka dambe ay dawladdii Ciraaq ciidan ay leedahay Maraykanku ay duqeeyeen oo ra'iisul wasaaraha Ciraaq uu u yeeray sida warbixinta ku qoran safiirka Maraykanka su'aalo laga weydiino leeyahay askarteena maxaa u garaacaysaa? askarteen waa idin kala garaweynaa adika iyo huwa mucaaradka maba idin kala dhaqaana kuwa ornimanku kibir badana. marka aan idin tuso marka khaliijiyiintii oo qaylinaya saaki. haddaba warbaahinta saaki waxay qorayaan dowladaha khaliijka gaar ahaan iyo Urdun, dowladaha khaliijka iyo Urdun waxay ugu baaqeen Ciraaq inay joojiso weerarada kooxaha iyada taageersan ee taageerada u ah Iiraan ay ku soo qaadayaan dowladaha khaliijka. dowladda Ciraaq ay uga dacwoonayaan Ciraaq hadday celi karto ma roocileed Ciraaq ku weynahay waaye hawadeena waaba la iska maraa, waa la soo maraa. maxay tahay waxaana iska leeyihiin meel oo la iska adeegtay iska noqdo. Ciraaqdii laga baqi jiray Saddam Hussein waagiis hadda waxay iska noqotay waddo caadi iska noqotay. ilaa hadda askartoodii la duqeeyay oo ra'iisul wasaarihii qaylinayo. marka nimankii khaliijiyiinta iyo Urdun dacwadii waxay u gudbeen dowladda Ciraaq, waxay leeyihiin kooxahan Iiraan taageersanaa ka hurdi laaneen inta alaabta Iiraan maqan tahay ayagaabana mashquulinaa dheh. wixii gantaal aan haysanay droniskooda kula dagaalnaa dheh. annagoo kuwii qaati billaah ka joogno dhididkeena daadana kula Iiraan imaaneen markaasay jugta naga geleen. marka nimankii gobolka marka sheekadaas iyaguna ka socota xaaladaas ayay wax marayaan. haddaba xog laga soo helay aqalka cad ee dalka Maraykanka waxaa la sheegayaa Trump inaanu ogolayn dagaalku inuu sii socdo. qaati billaah yuu joogaa. ruuxan yaa kaasoo afjaru leey nafta haysaa leeyahay. nafta odagii wuxuu hadda taagan yahay 4 ilaa 6 toddobaad. haddaan kusoo afjari weyno waa naloo yaabaa.
ودولة أدونك وود بدو فرصة حكت وحالة سو هلا يا أقل كعد أفر إلى 6 أسبوع وحن رجينا يا بيش مي أو كلن كم مدحوينها شينها عن كدقي وأن لا كل مدوره إن دجالكوا يقدر معه بركور مع سعودي معاقل يدجال إيران ما يجي يدقي سوى إلى هذا ورانا هذا ورتقبل كارو دوا جبرة وحنا من نقعونيس لكن سيد اللي سوى الدجال كيال سوق لي واكر هذا مال وقب حمله دجال كينو يقول له هذا مرة بيري أي هذا كاس هرتالي هذا يقول له هذا مرة ببورا هذا بركار إذا تسوى الجزيرة ساكي وربحتن أقل كعلى جهة سوق بريسة وحال ليه هاي وربحتن وحصوها لي جورنال كده هذا وول ستريت جورنال أمريكي كله جليه وحوليه ترام waxa uu hadda doonaya in marka dagaalku aanu ku dheeraanin oo Iran kula jiro Trump waxa uu gaarsiiyay ama u sheegay dadka isaga ku dhow inuu jeclaan lahaa dagaalka inaanu ku dheeraanin waxa uu dhanka kala sheegay 4 ilaa 6 toddobaad inuu marka doonayo in dagaalkan la isaga soo afjaro waxaana ka baqayaa uu yiri inta dagaalkan igu dheeraado askar badan oo Mareykan inay halka ku dhintaan askar Mareykan inay ku dhintaan baxay hadduu askar kala keenaya uu leeyahay jasiirada qabsanaya baba askari afayoobaanay dadka shiicada oo wareersan oo ciilka qaba askari Mareykan inta arkaan waaba u daadanayaan marka ninkii marka asaguna halkaas baray xogtaas aqalka cad laga keenaa ugu waa journal mid ka mid ah journalada ugu afka dheer la soo xigeenaya leeyahay Wall Street Journal asaga sheegaya odagu marka 4 ilaa 6 toddobaad ka badan nafta ay isu taagay marka nimanka xaalka ku xun Iiraaniyiintina inay xataa dabcaan iska dhaafay shuruudo cusub ay ku dareen dagaalka in la joojiyo حالي وابا أركيسي برامج حالي هذا وحي سبضنا 5 شروط هذا لا soo baxeen أول إلى 3 عمل وتين الله بيبقى كسر درس ذيلاد مركا sheekadu halkaas joogta xaalku halkaas uu maraa qadar xayisiisa kadib waxaan u gudbaynaa markab wada ciidamo Mareykan ayaa wuxuu ku xirtay jasiiradda la yiraahdo Diego Garcia oo ku taala badweynta Hindiya xagee loo soo wadaa Iran way suuynayeen heegana ku jiraa haddaba tafaasiil ku saabsan wararkaas ayaan galaynaa xayisiinta haddaba qaybtan ugu dambaysa barnaamijka waxaanu ku soo qaadanaynaa dhaqdhaqaaqyo ciidan ayaa waxay ka socdaan jasiiradda la yiraahdo Diego Garcia badweynta Hindiya ku taala Ingiriiska iskale Mareykanka hadda uu isticmaalaya diyaaradihiisa ciidankiisa markab maalin hore soo baxay oo wuxuu wadaa askarta diyaaradaha inta lagu qaado lagu daadiyo meelaha firqatu 82 لهذا معناه قوتة 82 لهذا وقوتة قطرة واسان ماشي كوتاتا وري كينايان ها حسوا سعودانا اللي ولا سويا هذا مركب حاليا وحي كوحرتين دكدا وحي تجي جزيرة داس صديقاس تجين ويسوس ديارينيان ويسوس سعودان هذا مركب وركي وقدم بيجي هدان يدين لوذا وحليه هاي dhaqdhaqaaqyo military oo Mareykanka wuxuu ka wadaa jasiiradda la yiraahdo Diego Garcia saldhig ku yaala jasiiradaas oo ku taala badweynta Hindiya wararka waxay sheegayaan in halka uu ka socdo diyaar garow balaaran oo markaa ku saabsan dagaalka uu kula jiro Iran waxaana halka soo gaaray guutada ciidamada badda iyo kuwa cirka istaraatiijiga ah ee Mareykanka waxaana halkaasi la sheegay inay ku sugan yihiin saldhigaasi istaraatiijiga ah oo ay sida wada jirka u joogaan Mareykanka iyo Britain sawirro laga soo helay satellite-ka ayaa waxay muujinayaan markab dagaal oo Mareykanku leeyahay oo la yiraahdo USS Tripoli la yiraahdo ayaa wuxuu ku xirtay dekada waxaana la sheegay inay la socdaan askar ka tirsan ciidamada wararka qaar waxay leeyihiin 2500 qaar waxay leeyihiin ilaa 3000 Iran maxay ka cuneen odaga markuu wareerayo waa moogtay qoydii hada waa la isku hayaa dagaalkii waa la isku hayaa xabadii way socotaa
wax wada xaajooda oo hadda muuqda ma jiraan shuruudo adag nin walba taagan yahay haddaba waa arki doonaa meesha ku dhamaato barnaamijyada dambe iyo warbixino cusub oo aan idiin soo ururiyo ayaan idinkula wadaagi doonaa haddii aan la idmo haddaba ku xirnaada mar walba barnaamijyadeena xaqaa'iqa ku salaysan inagoo mar walba idinla wadaagna wararkii ugu dambeeyey iyo warbaahintii qortay intaba like garay oo share garay haddaad cusub tahay loobi subscribe inaad ka samaysato channelkeena si aad mar walba u hesho xogahan muhiimka ah inta aan mar kale kulmayno asxaabay nabadgelyo